xubnaha golaha shacabka iyo hawlwadanada iyo marti sharaftaba maalin wanaagsan. ajendahan eray baa ku jira waxoogaa xiisad gaara sameeyey ama dadku ay nuxur gaara ka dhex filan hayaan. waa arrinta masiiriga. wax masiiriya markii la yidhaahdana waxaa ugu horeeya waxaa ka mid ah dastuurka ku-meelgaadhka ah oo bays u ah xeer dhaqameedka Soomaaliya, gaar ahaana ku dhaqanka xeerarka kaleete ee waddanka shaqadiisa lagu kala wado. waxaana keenaya waqtigan in sidaas loo soo dhigo. waqti dhow waxaa furmi doonaa ka doodista arrimaha dastuurka. waxaad ogtihiin inaynu meel marinay habraacii dastuurka ku-meelgaadhka looga bixin lahaa wax ka beddelkii u yaalay labada gole. waxay codsadeen in ka mid a xildhibaanada iyo guddiga joogtadiihii habraaca ka hor ayay ajendaha noogu jirtay in looga hadlo mar dastuurka markii laga shaqaynayay yaa xaq u leh inay ka shaqeeyaan, qaabkeesa looga shaqayn doonaa. waxaad ogtihiin dastuurka ku-meelgaadhka xilligii lasoo gudbinayay inay ergo la xulay ka soo shaqeeyeen. ergadaasina ay ku soo wareejiyeen guddiyo in loo xil saaro guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga la socodka, kuwaasina ay ku soo wareejin doonaan baarlamanka labadiisa aqal. baarlamanka labadiisa aqalna uu samayn doono wax ka beddel lagu samaynhayo dastuurka oo ku-meelgaadhnimada looga gudbi doono waqti dhow. maadaama marka ay arrintaasi jirto, arrintaas waxaa jirta mar walba in looga hadlo arrimo siyaasadeedoo la yidhaahdo wax ka beddelkii goormaa la samayn, maxaa ka dhiman, see loo samayn, inay doodo ka jiraan. doodahaas ayaa furitaanka ka hor in waxoogaa xildhibaanadu ay u ifiyaan dadka shacabka aan ka qaybgeli karin ama aragtidaas in cidda xaqa u leh inay ka shaqayso la caddeeyo. wax ka beddelka dastuurka waxaa xaq u leh labada gole ee baarlamanka federaalka. labadaa golena waxay la wadaagayaan wax ka beddelkooda maslaxadaha ay leeyihiin shicibka Soomaaliya. cidda lagala tashanhayo iyo cidda wax laga weydiinhayo arrimaha shicibkana waxaa u xilsaaran guddiyada uga hooseeya baarlamanka labadiisa aqal. waxaan rabnaa marka dooddu inay ku salaysnaato sida aanu u soo bandhignay waxay ahayd guddiga joogtada maalintii dhaweyto doodda inay noqoto in lagu caddeeyo cidda xaq u leh inay ka doodo waxna ka beddesho dastuurka ku-meelgaadhka inay tahay baarlamanka labadiisa aqal. dadka qaarkood ayaa arrimaha masiiriga marka wax kaleeto isweydiinhayay. marka arrinta masiiriga ee golahu ka hadlaya waxay tahay in la caddeeyo keliyata wax ka beddelka dastuurka cidda u xilsaaran inay tahay labada aqal. labada aqal markay isu yimaadaanna ay doodda toos u gelayaan, laakiin aqalka golaha shacabku ay tahay maanta inay ka hadlaan keliyata in dastuurku uu yahay xeerka ugu xoog badan ee Soomaaliya ku dhaqmayso, kaasna looga hadlo golahan isagoo ay la wadaagayaan aqalka sare. labada aqal marka inay tahay cidda keliyata ka soo shaqaynaysa. waxyaale waxaa jira qodobo siyaasad iyo khilaafaadka oo loo celinhayo madasha iyo wax lamida. kuwaasna waxaan isleeyahay wax waa laga soo yidhi. wixii kaleetay aragtiyana mar walba in la isku indho buuxiyo, guddoonkuna uu ku jargarayo aragtida xildhibaanadu ay soo gudbiyaan, in kolkaas ay bays u noqoto iyada oo shaqo ahaan iyo technical ahaan ay ka soo shaqeeyeen labadii guddi midna shaqada technical uga soo shaqeynaya midna soo gudbinta lahaa ee guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka arrimaha dastuurka. wixii ay soo gudbiyeen in looga doodi doono labada gole. aragtida labada golena marka ay wax ka beddelka ugu horeeya noqon doonto. marka arrinta asalka ee dadku isweydiinayeen ee maanta dad badan ka buuqayeen keliyata waxa weeyaan yaa xaq u leh inay ka hadlaan dastuurka ama wax ka beddelaan inay yihiin baarlamanka federaalka ee labadiisa aqaloo wada jira. marka ajendaha inayna wax kale ku jirin oo aragtiya ama cid kaleeto meel ay fargooni ugu gudan tahay inaysan jirin.